والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxa salaamaya dhamaan dadka halkan jooga iyo inta dambeena daawan doontaba halkan joogna waxa weeyaan degmada gargaara oo ahayd meeshii masiibada ugu badan ay ku dhacday annagoo Camud Foundation maanta waxaan doonaynaa inaan ku wareejino maamulka degmada oo halkan nala jooga iyo maamulka gobolka labadaba iyo hay'adaha u xil saaran wax ka qabashada masiibooyinka oo dhamaantoodba bartan ku dhan inaan ku wareejino hanti raashin oo la soo raray maalintii salaasadii jid dheerna runtii soo martay jidku dhib badan buu lahaa gacan ilaahay baa ku dhacday gawaari badan baa soo qaaday laakiin wayna soo gaadhay ilaa darad bayna soo gaadhaysay rantaas waxay dhan tahay 1550 qoys baan soo qaadnay soo rarnay oo ku filan bil in ku filan raashinkood baanu keennay waxaan kaloon keennay wixii ay dhisan lahaayeen maadaama guriga ay baabeen 1550 qoysna waanu keennay waxaan doonayaa koo warta inaan u mahadnaqo gudoomiyaha gobolka Awdal mudane Cabdiraxmaan oo runtii maalintii ugu horeysay ka jawaabay baaqudda hay'adaha annaguna aan kamid ahayn annaguna ka soo jawaabnay koo kale runtii ay ka soo jawaabeen waxay ku habsaaseen waa wada xumada waxaan isleeyahay ilaa 3 cisho iyo wadada ku soo rafanayeen baabuurtaas haddii caawana soo gaarnay ilaa 3 cisho kalena wadada ku soo rafan doonaan wada xumada ayaa dhulka ka jirta runtii waxaan leenahay dhinaca wadooyinkana qorshaha in lagu daro yaa fiican oo cidba wixii ay ku taageeri karto si wadooyinka loo baneyn lahaa waxaan mahad u naqaynaa hay'adda ugu soo horeysay xagga macaamilada ee halkan ugu soo horeysay aan maanta ku shirkadii ugu horeysay tuurkan ku soo qaybinay hay'adii ugu soo horeysay ee macaamilo bixisa ee raashina relief waa jiray dawladda soo bixisay raashinkii ugu soo horeysay qoyska waa hay'adda la yiraahdo Camud Foundation aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay soo gaarsiisay muddada badan ee halka gawaarida la soo jibaxday gawaaridu aan waqti aan diyaar loo ahayn in la soo waxa yana ku aqaybinaysa maanta guddida taakuleynta gobolka Awdal oo yana jiida kale laga bilaabo garbadooda laga bilaabo si ka sii xigta iyana maanta macaamiday ka bixinaysa waxaan aad ugu mahadnaqayaa hay'adaha ay hogaaminayso UNICEF oo iyadu coordinator kana noo qaabilsaneyd aad hay'adaha noo xiriirisay iyo hay'adihii la socday سيف شرطة كلا هذه وران وضع شيء مقعدوا هذا عمود فورليشن بان قرمة نرسو قاعدين وحيد إن نرسو إنه كان كرتين إنه كان تاي ده عمود إذا لو قم سورين هذا أي ما سنتي ده horta ilaahay baa gurmad leh gurmadkii noogu horeeyay hay'adda wuxuu ahaa Camud Foundation noo keentay baco iyo raashin in muddo dheer oo ilaa bila aan maxay ku amal fali karno ama aan cuni karno wana ku mahadsan yihiin halkan waxaan ku gudoominaa raashin 100 qoys ah oo bil kaafiya dadka oo bariis leh oo daqiiq leh oo timir leh oo saliid leh iyo waliba waxay dheer yihiin Camud Foundation in ay noo keeneen 100 shiraac oo dadkii guryahoogii way baabeen cillay wada fadhiyaan waa xagaa cadaay ah oo kulul oo 40 digrii gaadhaya waad arkaysiin ubadka yaryar ee halka jooga ee naqnaqan cillada bay galaan guriyo uma dhisno bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan la joognaa gabadhii Qureysha iyo gabadhii Sahara ee horteed aynu heynay dhacdadii ku dhacday ee sida gaarka masiibadu ay gaarka ay ugu taabatay hooyo umulaysa oo dufaan ku dul dhacday oo aan miciin lahayn gudoomiyuu uu ka damqaday si mutadawacino dadka isaga ugu shaqeynay si horeba aan u sheegnay dadka isaga raashinada guryaha ugu galiyay kadib markii dadka shaqeynay ay yaraadeen gudoomiyahan marka halkan ayaan kula qaabilnay Qureysho oo uu doonayo qorshada Saharaba inuu ku wareejiyo raashin gaar ah oo isagu ugu tala galay oo jeebkiisa gacantiisa iyo kasmadiisa iyo deeqsinimadiisa duufaanku soconayay ilaahay baa dee badbaadiyay ilaahay baa dadkiisa abuurtay ilaahay ku dilayaan isaga ku noolaya ilmihii yaraayadii way badbaadeen hase ahaatee meel maran bay taagantay meel maran guri maran bay taagantay guri wax ka salahaabay maanta ka taagantay cayr ka taagantay oo gurigii la tagay weelkeedii la tagay alla tagay guri bay dul saarantay maanta marka wixii aan u qaban karaynaa anaguna waan gudoonsiinaynaa waan naga gudoomay Camud Foundation arinta aniga iga caawisay aniguna dadka igu sida igu dhiibeen aan ugu gudbiyo